adeer maxaa kugu dhacay waxba maxaad la ooyeysaa haddaba hooyaday aan ka baqaa inay aamini weyso oo ay u qaadato inaan iska cayaarayo maanta dhan oo waxba soo gadinba maxaad ku wadaa caagagtan waa sisin iyo loos ay soo gad idhahday oo cid iga iibsatana aan waayay suuqa ma la tegin oo ma la wareegin miya adeer waa la wareegay ee dadkii iga gadan lahaay oo dhanba shilin Soomaali ma sitaan ee EV Plus ay wada wataan anna ma wati ee adeer kaalay oo hooyo igala hadal wax ma cuntay maanta adigu saaka iigu dambeysay bis ams sax maaha hadduu ganacsigaagu isku dheelitiraynin qaybaha kala duwan ee bulshada waana fariintii bulsho ee kushitig media of home halkudhigeeduna waa wuxuu shaydaan ku shirqoolaa shakhsiyaadkaba xidho shaar weyn ood ku shubataan dhiigga shacabkood shaadal xidhashada shiikh ismoodaa shalwashada kuushil ku dhacayana wuxuu shabbahaa duul shisheeye doolar shalay noqoy guulna waa shilin fiiri adeer waxaad ii xisaabisaa 900 oo kun oo telefoon oo maalin kasta isticmaala $1 adikoo liistaaba tahee maxaa kaa galay waxaas inaan ka baxo adeer mayla rabtido haa ii xisaabihe okay waa 450 kun oo dollar maalintii bishiina okay waa 13 milyan iyo 500 oo kun oo dollar adeero sanadkiina ii sheeg sugbal lagu dhuftay 12 waa 162 milyan oo dollar fiiri adeer lacala adigoo ay intaas oo lacaga ku soo galayso maad igu fiirsan lahayd inaan derbigan ay agoontinimadu i keentay koolo dhuuq ku sii ahaado mise waxaa ii qaban lahayd intaan kaaga jawaabin ka hor yaad sheegaysaa hormuud waaye waa cadowga berri colaadin doona awlaaddiinna waadna ka dhigi kartaan maanta inuu berri u noqdo nasteex walaal cadayga in yar ii jabi adiga in yar ii jabi gada 1 shilin uu joogaahe walaal 1 shilin ma haysto ka badan baan sahayaa mobilna iigu jirtaa ma miskiin qadiyaad sidataa alleeleh waa miskiin qadiye waddani jiilba jiil ayuu beddelayaa jiilkii naga horreeyay isticmaali jiray kumi taano gambo shilin 5 shilin 10 shilin 20 shilin iyo 100 shilin way wada dhinteen ama in yar baaba ka nool annaguna kuwii ku xigay baanu nahay oo ay ugu yarayd lacag ay isticmaalaan 500 oo ay ganacsatada Soomaaliyeed ay aaseen 1000 shilin aynu ku taagnayna waxa uu yimi kudkaasina waa EV Plus saaxiib xalay waa riyoodeena bishaar ma noo tahay tuwayoliba isheegno annaga oo inta hormuud noo imaatay na wada xaabisay meel oo xanaano ah na wada geysay oo waxna inta ku baranay haddana shaqo na wada siisay oo baabuur aan wada wadano aan ku riyooday xalayno ilaahay waa nooga rumayn kariya iyagu si bakhaylin waaye hadday waxna bartaan iyo kale ugu shaqeynayna maahino lacalla iyaga ma iskala bakhayraayahe in ay shaqaalanimo noo sii tababartaan hadda riyadooda haddaad u yeeshaan waxaad uga sii tagteen awlaaddiinna inay nabad idinku dhaxlaan siina wadaan adeeggaad bulshada u haysaan hadda waase haddaad isku aaminsan tihiin inaad tihiin adeegayaal bulsho waana farriintii bulsho ee kushitig media of home iyaga leeyahay saaxiibayaalow istiinka koolada ha iga xumaynine alkuriiste naga keena saaxiibayaalow masaakiintan koolada inta uu iska dhaafo wax ma barto asagu yaana ka bixinayahe lacagta iskoolka aabbihiisno anigaba aabbahay iga bixiye adi aabbahaa hormuud aa u shaqayso laakiinse as aabba ma qabiyo hadduu qabana shiidba waa isku digashada awlaaddeenna ayaa ka dhigan garasho xumida aan ugu kala eexanayno waana farriintii bulsho ee kushitig media of home